isku qaab dagaalay laba beelood oo walaalo iska soo horjeeda waxaad kala socotaan arrintaasi waa arrintii waxay daba socotaa dhacdadii hore berigii hore muddada aanu ku maqnay arrinta waanu soo afjarnay waxay ahayd wixii dhibaatada dhacday waxaynu iskaga iman doonaa haddii la idhaha marka roobku doo sababtoo ah abaar xun badda meesha ka dhacay marka ismaaciirsataa la idhahaa taasoo kale markaasay noogu xidhnay habeen dhaweyd bay waxbaa qalalaasi ka dhaceen tiina tallaabaan ku qaadnay laba qof baa ku dhaawacmay waxoogaa ilaa dhowr iyo toban qofna waan ka soo qabanay oo odayaashii meesha marka hawshaas ilaa hadda halkaasay taagan tahay waana hawl sugaysaa xilligeeda sidoo kale saacad wasiir waxaa xidhan weriye cabdimaalik caldoon oo xukuumadda xidhay sababaha xarigiisa weli cid shaacisay ma jirto maxaa lagu tilmaami karaa xarigga weriyaha wallaahi anugu weriye imika uma aqoonsanay sababtoo ah howlo badan oo kala galay waa samafal marka qaarkood idinba waa ogti oo waa hay-ad samafala weriye waan ku ogaa anugu markaan barca joogay barasaabka ahaa laakiin intii ka dambeysay hay-ad samafal isu bedelay at the same time wuxuu ka qayb galay shirar lagu duwanaya qarankan oo si cad u cadaysto hebel baan u kaambeyngareynaya yidhi oo isaga afkiisa laga hayo dadkeena xaggaa tagaa marka ay qaladkan galaanay tagaanay dawladda dadku iska yaacayaan nimankaa iska balagdoonkii marka ay tagaan kadib muddo kadib bay cabsi iyo wax soo codsan jireen oo beri aad malahay wareysatee waxaan idhi qoladaa tagtay berreyna odhan doonaan cabsiisiiya marka cafiskiisa ooma qoran aayar iska soo dhaafo airportku yiri halkaana ciidamada ku qabto dee amarka qaba soomaaliya dee ciddayna tegaysa waa inay baasaboor sii qaadata somaliland cidda xaggaa ka imanaysa waa inay baasaboor soo qaadata soomaaliya oo kusoo gashaa dalka sida etoobiya looga soo galo iyo jabuuti looga soo galo marka isagu dee qof reer somaliland oo halkan u ka baxay meeshaasuu tegey hawshii uu meeshaa ka hayay buu sheegay inama wariyaah oo marar waran u doonan jiray way jireen laakiin aan qadiyadda somaliland iyo waxa faragelin kumay hayn jirin oo kamay sheekayn jirin laakiin ninkaasi nin siyaasi oo kaambeyn garanayo oo ragga imika wawantirka ah ee halkaa ku maqanee ama doorashada u doontay ama taageerayay waxaa ka shaqaynayay ayuu ka mid yahay imikana gacanta lagu hayaa kulli dee maxkamad ayaana joogta la geyn doonaa sidaasaanu yani go-aamadii qarankan ka soo baxay dhowba lagu hayaa uu ka mid yahay wax dhibaato oo kale oo meesha taallaa ma jirto isaga iyo qayrkiibana ciddii kale ee halkaa qabatay howlahaas kale ka qayb gashay ee soo noqota ee halkan ku soo noqota iyagoo aan cafis la siinin taatiloydba ayay mudanayaan haddii la idhaho wasiir hal su-aalaan kuweydiinaa ka baxsan muddo waxaa jirtay wadahadallo dhexeeya somaliland iyo khaatumo balse bulshada inteeda kale waxaa isla dhex maraysay wadahadalladaas ay soo afjarmeen laakiin saacada khalif galeen markii uu soo degay geeda diyaarado kasoo degay wuxuu yihi weli wadahadalladii way socdaan ka xukuumad ahaan maxaad kala socota arrinta noocaas wafdi baa dee xagga jabuuti waxa tegey ay soo wada hadleen qoladaa waa ogsoona ilaa heer waa la isla gaadhay laakiin ilaa hadda wax natiijo ah oo la sheegay ma jirto calina sidaa uu sheegay dee ma odhan maanaan wada hadal laakiin weli final maanaan gaadhin taasina halkaasi odhan wasiir su-aasha ku dambaysa haddaan ku weydiiyo ciidamada bileyska caasimaddu baabuurtii ay bulshadu wadato waxay weydiinayaan kaarkii dhalashadaha xafiisyada dowladda haddaad timaadad qaarkood ciidanka bileyska way ku weydiinayaan maxaa maamnigii baa weyqay oo argagixisana soo gashay mise nidaam kala ayaa wax loo baaraya bal ummadda dadkan ayaanu ogolaysiinayna aqoonsigu inay qaataan ay haystaan oo jeebada ku sitaan si looga garto oo aanay dadkani ila isku kalar baynu nahay isku af baynu nahay isku ummadee is ahayd baynu nahay iyaga uun maahe kuwa Kenya degan iyo kuwa Jabuuti jooga iyo kuwa Kiilka jooga Ethiopia jooga marka in dadku aqoonsigiisii uu aamino oo jeebada ku sito ayaanu doonaynaa dadka waa tababarayna